maanta waxa ay machadkaasu qabto isweydiin mayno indhaheenaan ku aragnay dhammaan waalidiintii iyo macallimiintii iyo maamulkii iyo martida u wada joogta maanta ishiinaad ku haysiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha nawaaxiga degan iyo inta u dhow iyo inta maqlaysa ama muuqaalkan aragtay inay iyaguna awlaadooda la gaaraan machadka ibnulqayim aljawsiya maadaama ay arkeen ama arki doonaan maaragtay nidaamka iyo akhrinta iyo aadaabta iyo akhlaaqda lagu soo bandhiga halkaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxa idinkugu khayr badan ka qur'aanka bartay ee haddana dadka sii baraya qur'aankii ugu horreeyey ee nebiga lagu soo dejiyey wuxuu ka hadlayay alqiraa'a iyo walkitaaba qur'aankii ugu horreeyey اقرأ باسم ربك الذي خلق وحانو لنا معهدك الله بركايو أولادنا الله بركايو وحكا برانيسا معلمين تي والدين تو اسكطوبا إلهي بانو غبر يينا إنو هغايشي أولادنا يددكينا ضمان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال سيدة در كيسانبا maanta waxaanu joognaa machadka weyn ee machad ibnulqayim aljawsiya lidaraasaati alqur'aani alkariim waalculuum alsharciya maanta waxa ay machadkaasu qabto isweydiin mayno indhaheenaan ku aragnay dhammaan waalidiintii iyo macallimiintii iyo maamulkii iyo martida u wada joogta maanta ishiinaad ku haysiin wixii awlaadiinnu ay soo bandhigeen wixii ay akhriyeen waad arkayseen ma haddaa ilaahay baa iskale subxaanah juhdiga aan kala harka lahayn ee mucallimiinta iyo maamulka iyo waalidiintu ay iska kaashadeen waxaa la yidhi kullu juhdin lahu thimaar dadaal kasta wuxuu leeyahay mirihiisii maanta la arkay cid walba mustawaha ilmahoodu ay marayaan maantay ogaadeen ay arkeen marka waxa weeye machadka oo aad arkayseen ardadu markay soo bandhigayeen waxaan halkaas ka ogaanay qaybaha uu ka kooban yahay waxaa ka mida maaragtay in qur'aanka ilaahay halkaa lagu barto waxaa ka mida farta oo ugu muhiimsan oo iyadana halkaa lagu soo bandhigay waxaa kaloo ka mida علوم الشرعية أي أيضنا ما ركتي كمدا وح معهدك لغو برتو وحكلو كمدا معهدك وحيابه وبحيو حناندا ويدنا شرتا وأركيسين الماء يريسكا وحسوبا لغاني أخرينيين ولا ليال مركل إلهي بامهدا إسكاله ثم قبنقابياشا يصوبا لغياشا يددك إسكسو دي بردي يوالدين تيغنو ومهدسين marka waxa weeye rasuulka waxaad ogtihiin qur'aankii ugu horreeyey ee nabiga lagu soo dejiyey wuxuu ka hadlayay alqiraa'a iyo walkitaaba qur'aankii ugu horreeyey اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم marka walaalayaal waxaa halkaan nooga muuqanaysa maaragtay waxa meesha lagu baranayo oo ah wixii ugu wanaagsanay rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxa idinkugu khayr badan ka qur'aanka bartay ee haddana dadka sii baraya waad maqasheen hadda ninkii saxaabi inuu ahay inuu taabici ahay aad uma xasuusto
60 sano iyo macallin dugsi ahay markaasaa waxaa lagu yidhi maxaa maaragtay intaas aad dugsigaan u fadhidaa waxaa igu hayuu yidhi inaan intaa joogo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ah man khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allama xadiiskaas markaan arkay dugsigaasaan ku nagaaday qur'aan baridaas qur'aanka ilaahay wax ka qiimo badan oo ka sharaf badan lama arko marka walaalayaal waa inaanu u carafnaa xagga kitaabka ilaahay allah jalla jalaaluhu wuxuu yidhi fafirru ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin qur'aankaas marka waxa weeye maxadka ibn al-qayyim al-jawziyya lidaraasat al-qur'aaniyya wal-culuum ash-shar'iyya waxyaabaha uu qabto waa wixii aanu maanta arkaynay indhaheena aanu saarnay maxadkaasoo hadda dufcooyin badan oo ay ka qalin jabiyeen mid halkan lagu dhigay ana hadda ka hor ka qayb galay mid kaloo meesha lagu dhigana waanu ka qayb galay waana ka warhayaa maxadkaas wuxuu ku yaalaa soona baar ubax inta u dhaxaysa maaragtay nasrudiin iyo baar ubax buu ku yaalaa niman dhalinyaro ah oo culimo ah oo jaamacadaha islaamiga ka qalin jabiyey ayaa maaragtay gacanta ku haya iyo macallimiin wax ka dhigta iyo waalidiinta intaba iskaashaday intaasaa maaragtay maanta ilaahay ka sakow mustawaad arkaydin soo gaarsiiyey waxaan u sheegaynaa dadweynaha nawaaxiga degan iyo inta u dhow iyo inta maqlaysa ama muuqaalkan aragtay inay iyaguna awlaadooda la gaaraan maxadka ibnul qayyim al-jawziyya maadaama ay arkeen ama arki doonaan maaragtay nidaamka iyo akhrinta iyo aadaabta iyo akhlaaqda lagu soo bandhiga halkaa waxaanu leenahay maxadka allaha barakeeyo awlaadana allaha barakeeyo wax ka baranaysa macallimiinta iyo waalidiintu isku duuban ilaahay baan uga baryaynaa inuu hagaajiyo awlaadeenna iyo dadkeenna dhammaan rasuulku wuxuu yidhi halkaa xadiisoo rasuulka aan sheegi doonaan ku soo gabagabaynayaa waxaa nabiga la weydiiyey dad yaa u khayr badan baa rasuulka la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi dad waxaa u khayr badan man daala cumruhu wa xasuna camaluhu qofkii cumrigiisu dheeraado camalkiisuna uu hagaagsanaado dadkaasaa u khayr badan waxaa la weydiiyey rasuulka sallallahu alayhi wasallam dad yaa u shar badan markaasaa nabigu yidhi man daala cumruhu wa saa'a camaluhu camalkiisuna uu xumaado carruurta waxa weeye waa kansi iyo kayd iyo wanaag weeye carruurtu waa thimaar qalbigeeda ka soo go'aysa waad aragteenoo waalidka haddii carruurkiisu dhinto uu ooyo carruurkiisu markuu dhinto ilaahay wuxuu u soo dirayaa malaa'ig waxaa la leeyahay waalidkii thimaartii qalbigiisii ka soo go'day haddii la qaato la dilay wuxuu waalidku sameeyo soo fiiriya hadduu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun uu yidhaahdo inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa hadduu sabro oo innaa lilaysto waxaa la sheegay ilaahay inuu leeyahay malaa'igtaas ubnuu lahu baytan fi ljannati wasamuuhu bayta alxamdi jannada guri weyn uga dhisa kuna magacaaba baytulxamdi guriga mahadda laakiin haddii gabadhii balaanbasho haddii cunugii laga qaado waaragtay ay tira alla nasiib darray ay dhulkaas ku galgaliso waxay weynaysaa fadligaas iyo wanaaggaas marka walaalayaal mar kale waxaanu tahniyadaynayaa arrintaan halkaan u joogno uu soo bandhigay maxadka ibnul qayyim maaragtay al-jawziyya lidaraasat al-qur'aaniyya wal-culuum ash-shar'iyya waxaanu leenahay baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى